wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland ayaa waxa ay si rasmi ah u shaacisay barnaamij la doonayo in bahda waxbarashada ee Puntland ay kaga qayb qaataan dhismaha wadada Ceel Daahir Cergaabo. Wariyahayaga Maxamed Saalax ayaa warkani faahfaahintiisa inoo dhameystiraya. wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa kulan ay la qaateen gudoomiyaasha waxbarashada gobolada Puntland waxa ay ku shaaciyeen qoondada ay wasaaraddu uga qayb qaadanayso dhismaha wadada Ceel Daahir Cergaabo ee gobolka Sanaag. kulankan oo dhex maray waaxyaha wasaaradda iyo gudoomiyaasha waxbarashada ee degmooyinka iyo gobolada Puntland waxa si rasmi ah loogu shaaciyay in lacagta fiida ay ardada laga qaado loogu darayo wadada qoondadeeda sida warfidiyeenka uu akhriyay agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ahna xiriiriyaha wasaaradda iyo wadada Ceel Daahir Cergaabo Maxamed Shirdoon. waxa si xushmad leh loogu wargelinayaa dhammaan waalidiinta inay qaaraanka wadada Ceel Daahir Cergaabo ku daraan bixinta fiiga dugsiga iyo ardada u dhigata jaamacadaha bil kasta. waxa la farayaa dhammaan xarumaha waxbarasho ee guud ahaan gobolada Puntland inay si wada jir ah ardayga ay uga qabtaan lacagta fiiga ah iyo lacagta qaaraanka wadada Ceel Daahir Cergaabo. xarun kasta oo waxbarasho waxa la farayaa inay bil kasta lacagta qaaraanka ah si joogto ah ay u qaado ay u soo gudbiyaan guddiga wadada ee Ceel Daahir Cergaabo. haddaba qoondada laga rabo arday kasta inuu bil walba kaga qayb qaato dhismaha wadada Ceel Daahir Cergaabo waa sida hoos ku qoran. ardayda dhigata jaamacadaha iyo macaahidda sarsare ee wax ka barta gobolada Puntland waxaa bishii laga rabaa lacag gaaraysa $1.25 1.25 ardayda dhigta dugsiyada sare waxaa bil walba iyana qaaraan kaga qayb qaadanayaan $1 oo ay ku darayaan lacagta fiiga. dugsiyada hoose dhexe ee guud ahaan goboladu waxay ku darayaan lacag $0.5 ah ama 0.5. guud ahaan bahda waxbarashadu waxay lacagtaas iyada ku shubayaan akoonada kala ah oo loogu talagalay bahwadaagta waxbarashada. dahabshiil oo ah 0062 iyo Salaama Bank oo ah 80 20 92 30. fiiro gaar ah waxa la farayaa dhammaan maamulayaasha gudoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaasha gobolada ee wasaaradda waxbarashadu inay fuliyaan hawshan iyada ah. sidoo kale wasaaraddu waxay cadeynaysaa inay aqoonsiga kala laaban doonto xarumaha waxbarasho ee dhaqan gelin waaya awaamirtan iyada ah. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Dr. Maxamed Cali Faarax waxa uu tilmaamay in ka qayb qaadashada wadada Ceel Daahir Cergaabo ay tahay waajib wadani ah dawladuna ay siyaasad cad ka leedahay. haddii $10 la bixinayay ardayga waa inay raacdaa waxaana lagu la xisaabtamayaa waalidka maaha ardayga maaha waa mas'uuliyiinta waxbarashada waajibka wadaniga ah ee ilaa heerka ugu sareeya dawladda ka soo fushay inaynu furino weey go'aankaas. arinta kale oo muhiimka ah waxa weeye waa sadaqa jaariya runtii arintaani marka diinta laga hadlayo oo waxa weeye waa shay nafci caam ah oo bulshada oo dhan ay ka faa'iideysanayso qof kasta oo dariiqaas mara oo si dhib yar ku mara waa u duceynaya intii ka qayb qaadata la shaka fi dhalik. Bashiir Axmed Gaaleeri gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Karkaar oo ku hadlay afka gudoomiyaasha waxbarashada ayaa sheegay inay si weyn u soo dhaweynayaan ka qayb qaadashada horumarka dalka oo ay ka mid tahay wadada Ceel Daahir Cergaabo. nolosheena dhan aynu ictimaadno ama aynu ku tiirsanaano wax gacan shisheeye inoo keentay marka insha Allah bidmillaahi kariim arintan waan ka qayb qaadano ayaan leeyahay waalidiinta iyo mas'uuliyiintaba annaguna insha Allah bidmillaahi kariim arintaas waan ka qayb qaadan doonaa. dhismaha wadada Ceel Daahir Cergaabo oo hadda laamiga la saarayo ayaa waxa idlaaday 46 kilomitir. wadadan ayaa mid muhiim u ah isu socodka dhaqaale ee gobolada dalka. Maxamed Saalax SBC Garowe.